oo dalbanaya malaayiin litir oo caanaha geela Soomaalida ah. Geelu xoolo kuma jiro waa oraah caan ka ah bulshada xoolo-dhaqatada ah ee Soomaaliyeed. Oraahdaasi way ka mug weyn tahay dhihitaankeeda, sababtuna waa in geelu Soomaalida uu yahay waxyaabaha ugu qaalisan noloshooda. Waana tan xorriyaddiiba lagu matalay neef geel ah, laguna heesay aan maalno hasheena Maandeeq. Maandeeq oo magaceeduba mug weyn yahay, waxa laga maalaya waa caanaheedee. Dowladda Shiinaha ayaa dalab ku doonayso caanaha geela u soo gudbisay dowladda Kenya, sida uu shaaca ka qaaday guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Kenya, Dr. Eric Ruto, oo sheegay in sanadkiiba dalka Shiinuhu dalbanayo 9 milyan oo litir oo caanaha geela ah. Guddoomiyaha ayaa xusay inay tani fursad weyn u tahay xoolo-dhaqatada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, wuxuuna sheegay in suuqa diyaarsan ee lagu doonayo caanaha geela ay ka faa'iidaystaan xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wuxuu xusay in sanadkiiba lacag u dhiganta 5 bilyan oo lacagta Kenya ah, una dhiganta lacag ku dhow 40 milyan oo doolarka Mareykanka ah, ay sanadkiiba ka faa'iidi karaan suuqan. Baahida caalamiga ah ee loo qabo wax soo saarka xoolaha ayaana guud ahaanba caalamka kordhaysa. Xoolo-dhaqatada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayayna tani u noqonaysaa suuq weyn oo muhiim u ah, ayna ka faa'iidaysan karaan. Dalabkan ka yimid Shiinaha waa albaab weyn oo kheyr ah oo u furmay xoolo-dhaqatada gobolka Waqooyi Bari ku nool. Dubad Cali Camey, guddoomiyaha guddiga suuq-geynta xoolo-dhaqatada Kenya oo ka warbixiyay dalabkan cusub, wuxuu uga dhigan yahay Soomaalida, ayaa sidan yidhi: iibka caanaha geela ayaa ka noqday wax caan ka ah meheradaha ku yaala dalka Kenya, iyaga oo noqday mararka qaar wax baraha bulshada hadal-hayn weyn ka dhalisay, iyada oo ay dadku ka hadlayaan faa'iidooyinkooda. Dowladda Kenya ayay tahay inay mas'uuliyad weyn iska saarto maalgashiga xoolaha si dalabkan looga faa'iidaysto, ayuu yidhi Dubad Cali Camey oo ka hadlayay siyaabaha kala duwan ee arrintan looga faa'iidaysan karo. Wuxuu sidoo kale sheegay in dalabkan keliya uusan ahayn mid ay ka faa'iidaysan karaan xoolo-dhaqatada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku nool oo keliya, balse ay tahay fursad ay ka faa'iidaystaan Soomaalida oo dhan ee ku nool gobolka. Soomaalidu waa dad karti badan, adduunkiina wuxuu noqday buulo yar oo dadku isku xiran yahay. Waxaan xasuustaa 1964 imaanshihii ra'iisul wasaarihii Shiinaha Zhou Enlai booqashadiisii Soomaaliya uu ku yimid in qof Soomaali ah uu u tarjumayay khudbadiisii. Taasna waxay ka dhigan tahay Soomaalidu hadda ayay ka aqoon badan tahay xilligaas, wayna tahay fursaddan in laga faa'iidaysto, ayuu yidhi Dubad, oo faahfaahinaya sida dadka iyagana Soomaaliya ku nool uga faa'iidaysan karaan fursaddan. Ka faa'iidaysiga mid ka mid ah suuqa ugu ballaaran ee caalamka ee laga helayo dalabka ku aadan caanaha geela ayaa guud ahaanba u noqon kara sabab weyn oo horseeda maalgashiga xoolaha siiba geela, oo waayihii dambe dhaqashadiisa aysan sidii hore ku ahayn deegaanada Soomaalida oo dhan. Soomaaliyana waxaa la sheegaa inay ugu horreyso adduunka oo dhan marka loo eego tirada geela la dhaqdo ee ku sugan gudaha dalka. Waddamada Kenya, Djibouti iyo Itoobiya oo intuba Soomaalidu degan tahay, ayuuna geelu ka yahay xoolaha la dhaqdo kuwa loogu jecel yahay, waxaana sababtiisa lagu sheegay inuu yahay mid ka adkaysi badan guud ahaan xoolaha kale.